phenols and ethers. waxaan weli taagnayn alcohol oo maalin hore aan ka soo hadalnay introduction, classification and isomerism of alcohol. waxaan bilaabaynaa maanta nomenclature of alcohol. alcohol see loo magacaabaa, sheyga hadduu alcohol yahay magaciisa see loo garan karaa, common name ma leeyahay, IUPAC name ma leeyahay. alcohol lafteedu sida kuwii hore aan usoo hadalnay oo kale ayaa loo magacaabaa. IUPAC rules way leeyihiin, common name way leeyihiin, or trivial system. Just trivial system iyo common name waa isku mid, waa tradition namekii la isticmaali jiray till now common dunida ka ah. alcohol are named by combining the name of alkyl group with word alcohol. common name-ka wax kale ma ahan, waxaa la isticmaalayaa alkyl group name, magaca alkylka methyl, ethyl, propyl wuxuu ahaa la isticmaalayaa, waxaan lagu darayaa ereyga alcohol as alkyl alcohol, methyl alcohol, methyl alcohol, ethyl alcohol, just like that. If the alkyl group is a complex, haddii alkyl group uu noqdo mid complex ya marka, we should use IUPAC system for naming marka. Yeah, waxaa la isticmaalaya IUPAC-ga. Example, alcohol iyo common nameski CH3OH, waxaa la leenahay methyl alcohol, ethyl alcohol, propyl alcohol iyo butyl alcohol or isobutyl alcohol. isoga waxaa ka dhiman inta CH3 ah, carbonkan hal nooga dhig, hydrogenka ka dhig, inta CH3 geli. That's isobutyl, waa sidaan marka. isobutyl sidaan ayuu u qormayaa. In the IUPAC system, alcohol are named as flow. markii laga hadlayo shuruucdii IUPAC-ga, ilaa annaga iskama soconee, xeer baan ku soconnaa. ha iska socon isla socsamayn. Find the longest carbon chain containing the carbon bonded to the OH group. kow waxaad raadinaysaa silsilada dheer ee adiga waxay kuu qoran yihiin CH3, CH2, CH2, meesha OH-ka uu ku dhegan yahay ayaa kow wax ka dhiganaysaa base, oo waxaad tirsanaysaa kaarbonada meeqaa haysata adiga 6, 7, 8. then waxaad dooran doontaa lowest possible number near to OH group. haddii OH meelaha u dhowaado intaa ka tirinaysaa, haddii intuu dhowaado intaa ka tirinaysaa, dhexda hadduu yimaado just option haystaa, dhinacaa ka tiri ama dhinacaa ka tiri. waa sida alkeenka oo kale. alkeenka marka aan joognay waxaan ka tiri jirnay sama branchiga, positionka branchi waxaa noogu bedeshaa OH. OH-ka meesha uu ka dhow yahay ayaad ka tirinaysaa marka. tusaale CH3, CH2, CH2, CH3. tan ayaa xaqdhina marka OH. inta fiiri marka waxaan ka soo tirinaa dhinacaan. maxaan ugu soo tirinaynaa OH waxay u dhowdahay dhinacaan 1, 2, 3, 4. marka la rabo in la magacaabo marka waxaan leenahay xagaa kuu nooya. marka waxaa lagu yidhi kasoo tiri lowest possible position aad kasoo tirinaysaa. number 3, indicate the position of hydroxyl. waxaa caddaynaysaa ama aad sheegaysaa positionka hydroxylka ka hor inta aadan sheegin parent alcohol name-ka. inta aadan sheegin waa inaad caddaysaa positionka alcoholka. 1 alcohol miya, 1 methanol miya, ethanol miya, position caddee. tusaale OH-ta waxay ku dhigan tahay kaarboonka saddexaad ay ku dhigan tahay. isku dhiskana waxaa waaye 7 maxaa dhirahdaa heptane soo maaha. waxaa leedahay 3 heptanol. 3da waxay u taagan tahay kaarboonka saddexaad waxaa ku dhegan hydroxide group ayaa ku dhegan marka. Change the name of the alkane corresponding to this
Jane by dropping the final E and adding all. Alkane. Samayn. Alkane. Ayuu ahaa. E u dambaysa bixi. waxaad ku dartaa all. maxay noqonaysaa? alkanol. methane ayuu ahaa methanol. ethane uu ahaa ethanol. propane uu ahaa propanol. If an alcohol contains substituent, name each alkyl side chain or other group and designate its position by a number. haddii substituent uu jiro ama side chains ay jiraan sheeyo branch ah, alkylka ku jira waa inaad side chainka caddaysaa waxa ay ku jira, ama side chainku alkyl groupa mase waa wax kale oo sida chlorine iyo nitrogen iyo sulfur maxay yihiin. Then design la imo nashqad ayaa dejinaysaa adigoo tirinaya positionka ay wax ka yaalaan. waxaa leedahay kaarboonka labaad methyl haysta, saddexaad propyl haysta, kan afraad noocaas. just waxaas ayaa samaynaysaa positionka iyo walxaha meesha yaala ayaad qaab detail u sheegaysaa. okay, sida normalka ah mar walba ee aan rabno inaan naming samayno waxaan isticmaali jirnay example iyo rule. marka laba example ayaan wadnaa. labada example mid ayaan sharaxaad dhamaystiran kaa siinaya, kan kaletana adiga akhrisanaya oo fahamka ka qaadanaya. Write the IUPAC name of the following alcohol. Give the IUPAC name of the following alcohol. Just iskuuliskaan noo qoran. suu yaala CH3 CHOH CH3 see loo sheegaa yaa waaye magacii see loo akrinaa. markii la rabo in la akriyo position alcoholka see loo cadaynaa. steps ayaan mari jirnay weligeen. xeerarkan waxay noo ogolaan jireen shuruucda inay noo toosto. find the longest carbon chain. raadi oo check ama tiri dabarka kaarboonka intuu leeyahay. meeqa kaarboon haysataa noo tiri. 1 2 3. marka waxaan leenahay waxaan haysanaa 3 kaarboon. hoos waxaan ku qoran fiin 3 carbon are in the longest chain. waa inay ku xisaabsan yihiin kaarboonada intay yihiin. haddii kaarboonada parent chainka aadan aqoonin ma go'aamin kartid mana qiyaasi kartid sida wax loo cabiro. stepka labaad maxaa samaynaysaa? numbering. waa tirinaysaa. marka la tirinayo waxaan nahnay give the OH group the lowest possible number. tirintu waxaad ka bilaabaysaa meesha OH tay u dhowda. hadda waxaan u malaynaa OH waxay noo taalaa bartamaha, dhinacaanna hal ayaa ka jira, dhinacana hal ayaa ka jira. marka muhiim ma aha in dhinacaan doona ka bilaabi karnaa 1 2 3 hadda ya. laakiin haddii ay kala bataan waxaad raaci doontaa dhinaca OH tay u badan tahay. stepka saddexaad maxaa samaynaya? stepka saddexaad waxaa cadaynaysaa positionka branch positionka oo OH ku yaalo. OH intuu yaalaa number 2 2 propanol 2 propanol. waxaa la yidhi indicate the position of hydroxide group and change the name of alkane corresponding E to all. E ayaad bixinaysaa oo drawing ku samaynaysaa. waxaana ku bedelaysaa all. propane ayuu ahaa maxaad ka dhigaysaa propanol. marka waxaan leenahay propane waxaa loo bedelayaa propanol. kan example-ka koowaad uu ahaa sharaxaadiis anaa bixiyey. kan qaab example-kan labaad inaad fiirisaan ay ahayd laakiin waa akrinaa sida haddoo kale waayey. laakiin kan waxaa nagu soo darsoomay branch ayaa yimid. waxaan rabnaa inaan branchigana ogaano, hydroxyl groupkan aan ogaano oo alcoholka isku dhiskaas haysanaa. marka ko maxaan samayn jirnay? waxaad raadinaysaa ama aad samaynaysaa tirada kaarboonada guud aad haysato. tiri horta meeqa haysataa? kaarboonada waxaa haysataa 6 kaarboon. 1 2 3 4 5 6.
6 carbon atom are in the longest chain marka chainka waxaa ku haysano waa 6 carbon ka hor inta aadan shaqo bilaabin qofka waa inuu yaqaana inta carbon ee parent chain waa stepka labaad maxaa samaynaysaa step 2 sida normalka waxaan samayn jirnay numbering waxaan tirinaynaa ama aan xisaabinaynaa positionka hydroxylada ay yaalaan okay markii la xisaabinayo ballantu maxay ahayd waxaan ka soo tirin jirnay meesha hydroxide ay ka dhowda aan tirino kaarbonadeena intaan ka soo qaadnay sabab maxay tahay 1 2 3 haddii intaan ka tirin lahayn hydroxide wuxuu tegi lahaa arag 1 2 3 4 uu tegi lahaa marka 4 iyo 3 yaa dhow 3 aa dhow soo ma sidaa darteed ayaa waxaa looga soo tiriyey dhinacaan from right to left ayaa loo soo tiriyey marka stepka xiga maxaa la sameynaa stepka xiga waxaa cadaynaysaa branch ma jira horta ha haddii branch uu jiro branch magaciisa iyo positionku ku dhagan yahay kaarboonka shanaad 1 2 3 4 5 kan sama kaarboonka shanaad maxaa jira waa lagu dhagan yahay yaa ku dhagan methyl group waxaa leedahay marka 5 methyl haddee then ayaa waxaa dhihi doontaa 1 2 3 3 then tirada guud oo 6 ah hexanol way imaanay marka waa fahansama in ka hor inta aadan go-aan qaadan aad caddaysaa positionada waxa ay ku dhagan yihiin position hydroxide-ka iyo positionka side chainka uu yaallo then go-aanka ayaad qaadanaysaa overall equation marka oo overall naming molecule-ka waa kana waxaa samaynaysaa parent chain-ka replacement ayaa waxaa ku samaynaysaa xarafka e yaa iska lahaa e alkane lahaa samayn alkane maxaa u dambeeyey e replacement ku samey marka bedelkeed waxaa la imaanaysaa all haddaay waxaan joognay 6 carbon soo ma 6 carbon waxaa la yidhaahdaa hexane iidaas way bixaysaa marka maxaa bedelayo all maxaa leeyahay hexanol hexanolka waa inaan caddaynaa positionka double bond positionka uu yaallo OH-ka intee waayo 3 ayuu yaallaa maxaan kaloo caddaynaynaa positionka uu yaallo methylka intee waayo 5 methyl 3 hexanol waa qaabka ugu macquulsan ayaad u sheegi karta marka waxaan filayaa in 2 example aan soo qaadanay 2 example aan soo qaadanay midna branch ayuu sameeyey midna normal ayuu ahaa labaduna waa ka hadal in the name of alcohol which contain 2 hydrox group somehow waxaa laga yaabaa in 2 hydrox group alcohol ay yeelato ama 3 ay yeelato maxaa sameynaya haddii alcoholada 2 ay yeelato 2 OH ay yeelato waxaa sheegaysaa positionada OH-ka waxaa leedahay 1 kusaale 2 hebel diol tusaale 6 ayuu ahaa 6 maxaa la yidhahdaa hexane meno hexane ida waa bixinaa sama intaa ku daraysaa diol marka tirada sheeg meeqa ahayd 2.3 tusaale oo OH ayaa jirtay 2.3 hexane diol ama hexane diol oo macnaheedu uu yahay hexane waayay 2 OH ku dhagan waxayna ku kala dhagan yihiin 2 iyo 3 kas laga marka hadda example-ka noo qoran fiiri example-ka noo qoran 1 2 3 carbon waay meeqa OH ayaan haysanaa 1 2 3 ayaan haysanaa maxaa leeyahay marka 1 2 3 3 carbon haysanaa 3 carbon OH haysto 3 waxaa la yidhahdaa propane overall marka waxaa isticmaalaysaa triol maadaama 3 ay yihiin haddii 2 ahaan lahayd waxaa isticmaali lahayd diol ya drawing see loo sameeyaa see loo diyaariya haddii lacag lagu siiyo magac see draw u samaynaysaa tusaale marka waxaana la siiyey magacan aragaya 2 methyl 1 bentanol ayaana la siiyey 2 methyl
1 bentonol ayaan nasiyo magaca ayaan rabnaa u bedelno structure horta ko bentonol meeqa carbon waay 5 2 3 4 5 qorina labo marka waxaan la siinaa maxaan leeyahay 1 bentonol mo 1 micnaheedu waxa waaye carbonku waa lagu dhagan yahay waa kaas hadana maxaa ku xiga marka carbonka labaad methyl lagu dhigan sama carbonku waa kana labaad kana methyl ma saar marka waa kaas waxa ku samaysan ama ku dhameystiran isku dhiskaagi exercise ay bagname alcoholada si fiican u sharax oo kooban ka dhig waxa laga rabaa inaad qortid ay bagname ay leeyihiin labadan isku dhis waxa laga rabaa inaad sawir ku samaysid magacyadan u bedeshid structural formula u bedeshaa laga rabaa cashirkeeni maanta kaasoo aan kaga hadlaynay nomenclature of alcohol and drawing of alcohol xagga ayuu ku egyahay ardayay aqoontu waa sidii ilays waa sida aroortiyo ogta waa barkee